Hello qaraabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ebisoodkeeni saddexaad Liverpool waa kana ama shaxdeena caadiga waa kana kulamo hore nagala soo badiyay oo xoogaa yar waa rafaataneen fahantaday marka hadda waxaan rabnaa Saalax horta heshiiskiisa waxa uu dhimay 7 bilood ugu dambeeyay ma cusboonaysiina heshiiskiisa wuxuu ku xiran tahay Champions League inaan qaadno ama haddii Champions League aan qaadi wayno ninkan waa iska fasaxa sababtoo sida reality sax Champions League qof aan qaadinin Maxamed Saalax ma sii jooga ana og taas waa markaan aan leeyahay marka waa iska sii fasaxa adiga hadda tadwiis bilashiiskiisa ma cusboonaysiinaa sida kale ay codsateen Darwin Núñez number 9 waa u dhiibaa ana xitaa waa aaminsan hadda Firmino maadaama uu baxay sanadka soo socda inuu number 9 qaadanayo Firmino waa aaminsanahay marka waa ciyaartan waxa isku bixaysa Nottingham Forest iyo Liverpool aniga waxaa dhalay 30 gool tan African la dhalay 30 gool dhalay fahantaday Nottingham Forest 14 gool la dhashay 14 gool daamis ala kull hal gool dhalinaysi waxa isku baxaya marka goosh aan dhahay kooxda ugu maxaa la dhahaa ugu goolasha badan iyo kooxda ugu goolasha yar isku baxayaan oh my god wow I'm sorry codkayga xoogaa yar xabab ku jirta amanena hergaba jiro marka cunugii hore Liverpool Taiwo Awoniyi ma la dhahaa waxa Afrikaanta maga xuma wallahi gool wuxuu dhaliyay aan la qaban karin oh my days bro wow Alisson Johnson ku qabta malahan waa kana markale weerar markana waa kana ay penalty no Gvardiol maxaa sameysay Gvardiol what have you done my guy what have you done أنا محاصر إنك وكجود بي بالواقع وحسنا وشوده سلاها وأسكت لي موجودة وبدل اسمه موجن جيبس وايز سو بدل عمر ريشارds كانين رجوري أطوري دون المركة أو ما كريس وود أطورو لنا ميديكتا ما بس بدي I don't know whatever that is bro like لما قلنا نقول لي أنفيل لا إله إلا الله محمد رسول الله والله بالله رفاض والله سان تلما أنا دم وعلمت هذه أو سان أو هاد كسي سعنو بسواي magzaan ku sii rafaad hadii waxa waay guuldarada ugu horeysa oo naga soo gaartay Anfield guuldarada ugu horeysa naga soo gaartay faante waa koox Finland maahan koox waxaadeen koox weyn ama ka badiyaan soo marka kulamada kale yariiska Champions League oo soo gudbay Ajax iyo waxa soo dhan waa soo dhaafay Napoli hadda awiyana kulankan markana waa kana Napoli horta magaceeda oh my god wow what bro how is that oh my Napoli horta waa bay adagtaa bilaha markiis bismillah waxa horta real life kana xamalena hogaanka horyaalka ida hayso waa 15 dhibcood ma 14 dhibcood meelaas camal ay ku haysaa bismillah markana waa kana qafiishka oh my god waa loo qabta wallahi si xun u galeen Seneskey oh wow labi ever I don't know what to do but labi ever waliya been wallahi waxa gooshin ilaa Peterson Seneskey aniga dhaliyay kabtankooda ama Napoli waa adagtaa sootii awdagtaa kulinkii hore xitaa waxa galnay Breja galnay markana Saalax shoot midigi bidix wax la tuur adiga let's go wal gool soo celinay so Bruno soo qaad Bruno dadka waxa waaye waa lama celi karo gurigooda ay tahay aniga hadda gurigeena noo imaatay Breja aan geliyeen waxa waaye gurigooda oo maan Breja ta karasan waa ku qabnaan faande midda kale Núñez number 9 ugu dhiibay ninka waxba ma haya wallahi billaah wax uu qabno laba kale loo dheelay labada kale eber faamino markana waa Gagbo waxa u maleynaa daqiiqadii ugu dambeeyay waa 85 daqiiqo let's go goori Gagbo badala ku wanaagsan waxa ku bedelay Arthur Mela ku bedelay Arthur Mela waxa uu keenay waxay tahay ay loobin Alexander Arnold dhaawac noqday kulinkii Nottingham Forest dhaawac noqday 3 bilood oo garoomada ka maqnaana bishii January way soo dhawaa December hadda lagu sii jiray band marka January ina baxno oo suuqa galno lacag noo haysanaa ina baxno oo suuqa galno ku khasbanahay oo aan soo gadano adeeg qadaxe xoogaa soo karo Albiter 2 daqiiqo ku dartay 6 daqiiqo la sii marooyo Albiter waxa ka khaldan ina dhamay bismillah yatag waxa Albiter Napoli jira malina bashaki ay galabay waa 2 daqiiqo ku dartay 6 daqiiqo sii marooyo ciyaarta 4 daqiiqo dheeri bismillah Saalax waa yaabay taa Napoli waxa ka khaldanay bismillah adeeg badnaa Napoli markay Arsenal ugu soo dhamaatay kulankan wuxuu Brighton 3 ku garaacnay kulankan waxaan ugu seegay Southampton 2 gool Saalax keenay ugu badan 2-1 marka shaxdan caadiga hadda waa kana laakiin dibka jira wuxuu yahay Arthur Melo Benoni Messi dheeli karo
inaa hadda joogto CDLC meesha ama gagba ama joogto labadooda mid inaa dish sii geeyo maahane والله سي كامل جوتا دو ديلي كرا بوزيشن كاس فاهمينو ان سي جيم الا laga gaara January markii la gaarana waa episodes ka dambe waa moogtahay January markii la gaarana caadi waa tageena suuq waa soo iibsan karnaa marka hal ciyaaraan rabaa inaan soo gado ciyaaraanka hadda Chelsea u dheelo la dhaho Mason Mount caadi u raadinaysaa Chelsea Liverpool caadi u raadinaysaa waxaa la sheegay taa club inuu raadino oo rabo Mount naftiisa Chelsea ma sii joogo mar sababtoo ah waxa player ay soo gadatay Mount inuu basiishi banaan mumalina marka labadan player mid inaa soo qaadana Nicola Barella ama Mason Mount marka insha Allah aykan waxaan u sameeynaa ball yaran u sameeynaa qaybta community aan soo dhigaa labada midkii aacudaysiina soo gadanaa laakiin ani ahaanteeda Mason Mount jeclaa sababtoo ah waa Ingiriis walaalka Ingiriiska oo la qabsaday way yaqaana barasho ka maraw friend saaraba marka kulamada iska buusin Everton Bellingham laba gool dhaliyay Salah laba gool dhaliyay waxa ugu badan afar hala ugu badan dariska Everton kulanka xamaasada leh kulanka marka waa Manchester United family shaxdeen ugu adaga ku soo galnay wax ma soo reebanin wax aan soo reebana ma lahan kulankaana adiga waxa waa real life waxaan maleynaa adiga caaw hal saac ay barnaamij oo maleynaa marka waa arkeena adiga insha Allah wixii dhaco laakiin ani maadaama taayir Liverpool ahay awashina badino laakiin Manchester arkay adag oo shaqaysanayso oo laakiin sidoo hore hadda kooxda uu ka bedelay yarkan maxalla tababaran Erik ten Hag oo ka bedelay marka wallahi wixii soo kordh doono ma aqaan wallahi Marcus Rashford waaw inta hadla Marcus Rashford baba weerarooda gool dhilrooga markana waa kana Marcus mar labaad soo galay laakiin Alisson kubadda iska badbaadiyay banaanka iska agsaar waa kana Livramento soo saar kubadda Mohamed Salah gool maano let's go oh my god what how did they save the game markana waa kana Sancho Marcus Rashford laakiin banaanka waa mariyay wali eber waa kan biid eber lagu kal maray 3 daqiiqo lagu dar last diyaas soo saar Mohamed Salah laakiin madaxa وقصاري كوبا مالسي دي دونا no Bellingham waa lagu sii adkeeyay wallahi lama sii deenin marka kulanka eber ku soo dhamaatay waxa ka cabsi qabaa kulanka real life ka xitaa aan adoo fiirsado in eber ku soo dhamaatay fahmina waa sababtoo ah Liverpool hadda waa awood isku sii yeelayso Manchester waa iska ogtiin awoodeeda waxa waaye waa kacsanta sanadadan dambe fahmino Mohamed Salah isku dayo badan waa sameeyay astaghfirullah dambiga ka galin hal isku dayo sameeyay ciyaarta horta waa adkeed wallahi ciyaar adiga aad barajadana uma qalmin laakiin aday barajada uma qalmin Manchester gool u qalantay sababtoo weerar badan lagu soo qaaday oh my god kulan kale waxay Leicester 3 noo garaacday wow bismillah ma filina wallahi marka laakiin kulanka barajada oo kii xaq uma lahayn waxa la Manchester kulankeeda barajada waxa waaye kulankaas guldara u qalanay sababtoo waa naga weerar badnaayo way naga fiicnaayeen marka insha Allah taala episode-ka intaas oo nagu keena ay xarjina insha Allah episode-ka ana keli doontiin please episode hore waa idinka codsa 10 like ina gaarsiisin kana sidoo kale 10 like idinka codsana insha Allah hadii nagu cusubta waxaan ku leeyahay soo dhawaad maalin walba video soo dhignaa marka welcome